صاحب هذا بيجك كعصبتهاي نديريجي وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله mahad oo dhan waxay u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala nabadgeliyo iyo naxariis ahaato nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam korkiisa sanadii 1978 ayaa mid kamid ah macallimiinta taariikhda ee Mareykanka oo lagu magacaabo Michael Hart wuxuu qoray buug uu bixiyay boqolkii ugu saameynta badnaa taariikhyahankan Mareykanka ahi wuxuu u doortay boqol qof oo uu ka soo xushay dadkii ugu saameynta badnaa taariikhda dunida si ay u noqdaan halyeeyada buugiisa waxa la yaab leh Michael Hart kuma ekaan inuu taxo magacyadooda maadaama uu yahay aqoonyahan taariikhda bini aadamka ku takhasusay ee wuxuu naftiisa xaq u siiyay inuu u kala hormariyo sida ay isaga la tahay inay u kala sareeyaan isaga oo raacaya manhaj isaga u gaar ah markaan si cadaalad ah uga hadlo buugan uu qoray taariikhyahankan Mareykanka ah ee asal ahaan Yahuudiga ah waxa buugiisa ka buuxa xog aad u fiican oo muujinaysa aqoontiisa daalacashadiisa waasaca ah iyo dhexdhexaadnimadiisa taariikheed arinta la yaabka leh waxay tahay filcilinta ay muslimiintu ka sameeyeen buugan aad bay ugu farxeen una soo dhaweeyeen in Michael Hart ka dhigay magaca nabigooda Muhammad sallallahu alayhi wasallam kan ugu sareeya boqolka qof ee ugu saameynta badan dunida waxaad moodaa inaan wax cusub oo aan moogeyn ogaanay ama waxaad moodaa in rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam markhaati furka sugaayay taariikhyahankan Mareykanka ah isaga oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u qiray weynaanta iyo sareynta aadaminimo arintan markaan aad u daraaseeyay waxaan ogaaday in farxadda iyo dabaaldega muslimiinta ay ugu wacan tahay dhibaato ka haysata muslimiinta aqoon la'aanta taariikhdooda islaamka iyo guud ahaan taariikhda dunida haddii uu buugan akhrin lahaa qof ka mid ah dadka dabaaldegaya wuxuu arki lahaa in professor Michael Hart uu ku soo daray rag dambiilayaal ah sida Genghis Khan iyo Hitler liiska boqolka qof ee uu nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ugu hormariyay ninkan la yiraahdo Michael Hart wuxuu si cad buugiisa ugu sheegay in Buddha oo ah ninka ay caabudaan dadka haysta diinta Buddhistaha oo uu ku tilmaamay qofka afraad ee ugu weyn bani aadamka inuu mudnaa lambarka koobaad ee boqolka ugu waaweyn haddii dadka raacsan u badnaan lahaayeen sida ay u badan yihiin dadka raacay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam si dhab ah uma hubo in taariikhyahankan Mareykanka ahi markii uu qorayay hadalkan liita uu ogaa in Buddha ku dhintay god ka mid ah godadka Aasiya isaga oo isdilay kadib markii uu waashay laakiin arinta aan sida dhabta ugu kalsoonahay waa annagu ka muslimiin ahaan Maxamed bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam waxaanu aqoonsanahay inuu yahay khalqiga Ilaahay abuuray kan ugu weyn oo ugu fadliga badan sidaa daraadeed waxa qalbigayga ku soo dhacay inaan qoro kitaab aan ku soo bandhigayo taariikhda islaamka guud ahaan kitaabkan oo aan ugu soo ururiyay dhacdooyinkii muhiimka ah ee soo maray ummadda islaamka bilowgeedii ilaa kuwa hadda jooga uma jeedo ummadda islaamka fahanka kooban ay u yaqaanaan badi muslimiinta kaas oo loola jeedo dadka raacay rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ee waxaan ula jeedaa fahamka waasaca ah ee koobaya dhammaan muslimiinta muwaxidiinta ah ee soo maray dhammaan marxaladihii taariikhda bani aadamka kitaabkan dhexdiisa waxaan u kaxaynayaa akhristaha sharafta leh safar taariikheed macaan kaas oo aan ugu safri doono dhammaan waqtiyada taariikhda bani aadamka safarkan oo aan ku jabin doono darbiyada waqtiga iyo makaanka si aan si wada jir ah uga safarno dhammaan qaaradaha kala duwan ee dunida laga bilaabo dhinaca bari Japan ilaa Chile oo dhinaca galbeed ah Switzerland oo waqooyiga adduunka ku taal ilaa koonfurta Afrika ku taal koonfurta si aan u ogaano xaqiiqada boqolka haliyay ee ummadda islaamka ee bedelay socodka taariikh boqolkan haliyay oo marna aanan sheeganayn inay iyagu ugu waaweyn yihiin waxay noqon karaan noocyo kala duwan haliyayga aan kitaabkan ku xusay wuxuu noqon karaa rag ama dumar bulsho ama qowmiyad hogaamiye ama askari arab ama ajami ama wuxuu noqon karaa haliyaygani caalim hal abuur leh ama gabayaa suugaanyahan ah oo farta lagu fiiqo ama wuxuu noqon karaa qof aan la aqoon oo ku lamay mugdiyada hilmaan waxaan u tahay magacyadooda qaab aan sheeganayo inaan anigu alifay qaabkaasi ma tixgelinayo kala horeynta xagga fadliga iyo weynaanta iska daa inuu
ilaaliyo fogaanta waqtiga iyo makaanka si uu noogaga waramo haliyey walba oo iyaga ka mid ah qisada islaamka ee waqtigii uu soo ifbaxay iyo dhulkii uu ka soo baxay ilaa aan ka gaarno kan boqolaad ee boqolka haliyey. marka waxaan helaynaa muuqaal dhammaystiran oo ku saabsan taariikhda islaamka aniga oo si dhab ah u huba in muuqaalkani yahay muuqaal yar oo ku saabsan taariikhda islaamka. muuqaalkani oo aan ogaaday markaan kitaabkan dhammeeyey inuu ka ballaaran yahay intii aan filayay aniga oo si dhab ah u og inayna marna suuragal ahayn in la soo koobo haliyeyada islaamka ayaa waxaan sameeyey dadaal iyo shaqo xiriir ah oo socotay muddo ka badan sanad si aan u soo xulo 100 tusaale oo haliyeyada islaamka ah oo aan awoodi karno annaga oo iyaga sii marayna in aan soo bandhigno qisada islaamka casriyadii kala dambeeyey innaga oo maanka ku hayna inuu noqdo bandhig taariikheedka haliyey walba oo ka mid ah iyaga inuu ku habboonaado dabeecadda danta loo soo qaado. mar ujeedadu waxay noqonaysaa inaan soo taxno dhacdooyin taariikheed keliya marna ujeedadu waxay noqon kartaa in la difaaco qofkaas marna laga jawaabo shubhooyin khatar ah oo si cadaalad darro ah islaamka dusha looga saaray marna ujeedadu waxay noqon kartaa inaan weerarno cadowga islaamka. waxaan isku dayeynaa inaan dhex dabaalanno taariikhdii siirada nebiga sallallahu calayhi wasallam sheekooyinkii asxaabta qisadii dowladihii khilaafada ee isku xigxigay qisadii dowladda madaxa bannaan qisadii saliibiyiin qisadii tataarka qisadii gumaysigii reer yurub ee labadii qarni ee lasoo dhaafay qisadii fidnada qisadii riddada qisadii furashada islaamka. waxaan aad ugu dadaali doonaa barashada sirta shiicada bilowgeedii tilmaamahooda caqiidadooda khatartooda iyo qorshayaashooda mustaqbalka. waxaan isku dayi doonaa inaan daraasayno qisadii ilbaxnimadii islaamka socnaanteeda waxqabadkeeda culimadeeda ugu muhiimsan. waxaan daraasayn doonaa sida ummadaha loo dhiso iyo sida ay u dumaan. waxaan tusaale nool u soo qaadan doonaa taariikhda andalus. waxaan uga hadli doonaa taariikhda andalus ilaa xad si faahfaahsan. waxaan daraasayn doonaa qisadii furashada islaamka ee beledkaas. waxaan u leexan doonaa qisadii imaaradii islaamka ee halkaas kadibna qisadii khilaafadii islaamka ee qordoba iyo qisadii boqoradii kooxaha kadibna waxaan in yar gees ula baxaynaa qisadii boqortooyadii muraabitiinta kadibna muwaxidiinta kadibna waxaan daraasayn doonaa dhicitaankii andalus sababihiisii waxyaabaha soo dedejiyey kadibna waxaan daraasayn doonaa xaaladda muslimiintii andalus dhicitaankii kadibna qisadii kacdoonkii dadweyne ee weynaa ee halkaa ka dhacay. ugu dambayn waxaan gudaha u gelaynaa qisadii maxkamadihii dabagalka ee argagaxa lahaa ee saliibiyiintii qabsaday andalus. waxaan u dusi doonaa godadkii sirta ahaa iyo qalabkii cabsida lahaa ee lagu cadaabayay muslimiinta kadibna waxaan badda la jeexi doonaa ciidamadii badda islaamka ee xooga badnaa si aan u daraasayno sheekadii mahadhada ahayd ee dagaalkii baruusa oo ahaa dagaalbadeedkii ugu weynaa taariikhda islaamka. kadibna waxaan sii wadaynaa jeexidda badda annaga oo la soconna ciidanka badda ee cusmaaniyiinta ilaa aan ka gaarno xeebaha labada ameeriko si aan halkaa uga soo daraasayno qisadii hindida cascas. waxaan xusi doonaa siro khatar ah oo la daahfurayo markii ugu horeysay taariikhdooda iyo xiriirka ay la lahaayeen islaamka. waxaan ku daraasayn doonaa ameerikada koonfureed qisadii argagixisada isbayn iyo boortaqiiska ee foosha xumayd. ameerikada waqooyina qisadii ugu xumayd ee bani aadam maqlo qisadii adoonsiga. kadibna waxaan ka hadli doonaa qisadii xoreyntii afrikaankii madowga ahaa iyo xiriirka ka dhexeeya islaamka iyo xoreyntaas. ka hor intaanaan mar labaad dib ugu laabanin caalamkii hore si aan u daraasayno sheekadii cusmaaniyiintii turkida oo faahfaahsan si aan u gudagalno sababihii keenay dhismidda boqortooyadii cusmaaniyiinta iyo sababihii keenay dhicitaankeeda. kadib marka aan ka waranno qisadii furashadoodii dagaaladoodii ugu muhiimsanaa si aan ugu lifaaqno dhammaadka kitaabkan warqad sir ah oo uu gacantiisa ku qoray suldaan cabdilxamiidkii labaad oo uu ku cadaynayo kaalinta ay yuhuudda ku lahaayeen casilaadiisa. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa qisadii yuhuudda doonama iyo xiriirka ay la lahaayeen dowladda turkiga ee casriga ah. waxaan kitaabkan kaga hadli doonaa qisada soo koridda islaamka cusub ee turkiga taariikhdiisa halyeeyadiisa ujeedooyinkiisa mustaqbalka soo socda. waxaan kitaabkan ku faahfaahin doonaa qisadii islaamka hindiya kadib markaan samayno milicsi taariikheed oo ku saabsan taariikhda hindiya diin iyo bulsho ahaanba. sidoo kale waxaan kitaabkan ku daraasayn doonaa taariikhda furus iiraan laga soo bilaabo
soo ifbixiyay ilbaxnimadii Faris ilaa laga soo gaaro dowladda Khomeini ee casrigan joogta. Waxaan isku dayi doonaa inaan fahamno cadaawada qarsoon ee ay si gaar ah Carabta ugu hayaan kadib markaan soo milicsanay taariikhda Carabta oo ahayd ummadii Islaamka soo xanaanaysay asalkoodii, qabiilooyinkooda, nidaamkoodii siyaasadeed iyo bulsho ee Islaamka ka hor. Taariikhda diineed iyo tan aqooneed waxaan ka hadli doonaa sirta luqadda Carabiga iyo sirta ka dambaysa duulaanka cabsida leh ee lagu soo qaaday waayadan dambe. Waxaan kitaabkan ku xusi doonaa gabay cajiib ah oo uu tiriyay gabayaagii ugu weynaa taariikhda bani aadamka. Waxaan ka hadli doonaa dhaqdhaqaaqyadii xornimadoonka dhulalka Carbeed. Waxaan ka hadli doonaa taariikhda Falastiin, taariikhda loolanka Islaamka iyo Saliibiyiinta, loolanka muslimiinta iyo majuusta. Waxaan isku dayi doonaa sharaxaadda aragti taariikheed cusub oo isku dayaysa inay sharaxdo fahamka duulaan taariikheedka muslimiinta lagu soo qaaday. Insha Allah markaan dhammayno kitaabkan waxaan helaynaa milicsi wanaagsan oo ku saabsan qisadii Islaamka.